ma og tahay in 40 sano ka hor uu madaxweynaha dalka Ciraaq ka hadlay cudurka coronavirus isla markaana uu sheegay in lagu goodiyay in dalkiisa lagu beeri doono laguna layn doono madaxweynaha oo la hadlaya saraakiisha dalkaas ayaa ku sheegay warbixin kooban uu kaga hadlay cudurkaas marka aad daawatid waxaad ogaan doontaa xaqiiqda cudurkaas iyo inuu yahay wax ay dadka gacanta ku hayaan isla markaana markii la rabo la beeri karo. هسه شنو احنا يقولون اكو كورونا واكو فيروس. يعني سألت بعض الرفاق قلت لهم شنو هاي الفيروس شنو الكورونا، اريد واحد يفهمنا بيها. قالوا سيدي هي الفيروس يعني يصيب الانسان ويهاجمه وبالتالي يقضي على حياته ووقف له جهازه التنفسي. قلت له مالي خنقه يعني يلزم اخوانيكم مثلا رقبته. قالوا لا. قلت لهم لا، شنو هو الفيروس؟ له خشم له حلق عيون. قالوا لا سيدي الفيروس ما ينشاف الا بالمجهر. يعني رأسا تنخيت. قلت انا اخو هذله يعني العراقي اللي ياكل بشر يخاف من شيء ما ينشاف إلا بالمجهر. هي هاي المرجلة، هي هاي الزلم. مش وقت تهدس شواربكم وما تخافون من الكورونا. مع الأسف انتم أحفاد القعقاع تلبسون كمامات. قبل لحظة أنا اتصلت بالرفاق الأبطال قلت لهم شنو موقفكم من الفيروس، أريد موقف جدي. قالوا لي سيدي احنا جاي نتعشى زلاطة مخلوطة بالفيروس بالكورونا. قلت لهم عافية يعني ما تخافون منه؟ قالوا لا احنا ترباتك، احنا ابناء العراق ما نخافوا من الفيروس الكورونا اينما كان او يكون. وبالتالي يعني دائما أوجه بعض الكلمات للأخوة من الشعب ونقول لهم sidii aad maqlayseen madaxweynihii dalka Ciraaq Saddam Hussein wuxuu sheegay 40 sano ka hor cudurkan inuu ahaa cudur jira ah oo horey loogu goodiyay isla markaana magaciisa xataa la shaaciyay. marka maanta qariib ma ahan dadkii waagaas inay cudurka maanta faafiyeen dadkana ku dhex beereen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naga ilaaliyo hana naga badbaadiyo. runtii arrimahan arrimo waaweyn ayaa ka dambeeya, siyaasad ayaa ka dambaysa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa awood iska leh, asaga ayaa naga qaban kara. haddaba dadka la yaaban makriga gaalada dhagarta inkaarqabayaasha maanta ha ogaadaan 40 sano ka hor in dalka Ciraaq lagu goodiyay maantana dalka China lagu abuuray oo lagu faafiyay. waa arin aad iyo aad naxdin u leh. hal islaaliyo hana la taxadaro oo in badan ama ka ku riday kadib markii xukuumadda wadanka Ruushku go'aan ku gaadhay Sabtidii Doraad ay suuqyada iyo wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ruushka ku soo daayeen in ka badan 800 oo iskugu jira libaaxiye iyo shabeello dad qaada si ay dadkooda ugu khasbaan inay guryahooda ku sugnaadaan oo aanay sharaaciyada iyo suuqyada u soo bixin si looga hortago faafitaanka caabuqa coronavirus oo farabaas ku haya dalalka caalamka. wadooyinka waaweyn iyo suuqyada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Ruushka sida Moscow, St. Petersburg, Kasana, Sochi iyo kuwa kale oo badan ayaa mar qura Doraad subax lagu waabariistay iyadoo ay kala xidheen shabeelle iyo libaaxiye waaweyn oo argagax geliyay dadkii magaalooyinkaasi deganaa, kuwaas oo ay khasab ku noqotay in qof waliba qolkiisa hoosta ka soo xidho oo aanu samaynin wax dhaqdhaqaaqa oo dibadda ugu soo baxayo. sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka ee Interfax ee dalka Ruushka, madaxweyne Vladimir Putin ayaa la xaqiijiyay inuu isagu bixiyay amarka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi loogu sii dhexdeynayo libaaxyada iyo shabeellada, kuwaasi oo dad qaada qaarkoodna uba muuqdaan kuwa gaajaysan oo haddii ay dadka helaan daqiiqad ku kala goosanaya. arrintaasi ayaa ugu dambeyn keentay in habeen hore ilaa shalay cidi dibadda u soo bixin iyadoo kaliya telefishinada laga daawanayay libaaxyada iyo shabeellada gaaf wareegaya wadooyinka iyo meelihii saxmadda ahaan jiray oo imika noqday kuwa haawanaya oo aanay laba qof dhex maray. madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin oo qoraal kooban shacabka dalkiisa kula wadaagay barta uu ku leeyahay Twitterka waxa uu yiri waxaan jeclaysanay inaanu libaaxiye iyo shabeelle
hoteello ku soo deyno magaalooyinka si ay dadku guryahooda ugu nagaadaan waxaan awoodnay inaannu dadka amar ku soo rogno oo aannu u sheegno inay guryahooda ku sugnaadaan oo aanay u soo bixin si looga hortago loona xakameeyo cudurka halista ee coronavirus balse waxaannu go'aansanay inaannu libaaxyada iyo shabeellada meel walba ku soo deyno si looga baqdo oo aanay cidina iskugu iman dibadda halkii aanu qofkii dibadda u soo baxa xabsi geyn lahayn dhinaca kale wasiir xukuumadda ka tirsan ayaa sheegay dawladdu aanay doonaynin qofna uu dareemo in xabsi guri la geliyey oo xorriyadda laga qaaday sidaa daraaddeed fikirkan uu madaxweynahoodu keenay si iyadoo aan qofna la khasbin haddana qof waliba gurigiisa hoosta uga soo xidho si ay uga badbaadaan libaaxyada iyo shabeellada gaajaysan ee meel walba yaacaya shalay oo axad ahayd keliya waddanka ruushka waxaa laga diiwaangeliyey in ka badan 61 kiis oo coronavirus taasi oo tirada guud ee dalka ruushka ee uu haleelay cudurkani ka dhigaysa ilaa imika 367 qof xamse geelle Honkable TV adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha بسم الله الرحمن الرحيم حاولي فرقي أو بابناجة حاولي لا بلش بوحي فرح القبة فيها يا صايع لا هو قبل لا بلوس أنا هوي لا بلوس هسه عليكم السلام ورحمة أبا يحكي حاجة يقدروني هو فرح يورم وحاس كقبله بسم الله الرحمن أبا يورم سيتها يعني الحمد لله بالفرح اسكبوا في قرآن اسكبوا في فالحد هو كدلاني يقدم أنا قرآن كدلاني يقدم محاكم وداعي هاي أباي معان وقت يلو يسوي يجري وقت يلو يسوي وقتري معها ماشي المير يراهم كو هايستا وراله ما هاي قلدن وراله أنا نفتالها قلدن أنا كيدها قلدن وراله ماشي هذا تشوف وراله جرقال كلابو وراله المير يراهم هايستا قرون فايس باشرو نبايا لا ماشا guryaha wala tuwal ugu xiran yahay hay idhiga moraal macaanti ku laaba gurigi xaafadaada ku laabo waa fiicanahay adna waa fiican sama fiicin شيطان كسكنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معاي كورونا فيروس وحي لنا الجوبة هيا هيا حالة كان اسمه بدريسان والله اسمه بدلنا السيدة مقالة لما يتبقى اسم بدشي وعرض يقرن بقى اسم بدشي والله بدكم وادي سيدي سوتشرو المير يران هايستا والله الميشا كو هايستا والله عنا هاي فدمان عنا هاي فدمان والله مايا والله حتى كذلك يقدر كان هالبدي كان أصلا بلا تلصوك على الدم بسم الله ما يدريس ما أقدر ما محاكم راعي هاي تعرفوا هاي وقتها وصوف ويساي هاد بدهم حيدا لا والله مشي ما دي بقرن باخرة وهو دي باخرة وعرض يقرن بالوقت ولعذا يوتيوب متشرت وواحد يسكبي ماذا متشرت وهذا متشرت ما عنك إلهي قرن فيس كول هلا جار مان وعلى كذا فراي كل معانا وراي هذا سمسم نقدر نفعل بعض سمسم يقدر بعض أبي قرن فيس مودد أما هو يحنون تروي والله يسكبوا سو جره يوبا لسكقابه وراي معاي وراي ما هي قفت المين وراي ما يرجع هاي قفت المين لا وراي يقدر نبكى هاي باي هذه قروش روس